kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka warbaahinta jariiradda qodobada aad wararkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid ah tirada ajaanibta xalane ka shaqeysa iyo kuwa sharci darrada ah oo la shaaciyay xilli shaki badan laga qabay dhismahan ku gidaaman garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho. siyaasi caan ah oo bannaanka soo dhigay qodobka dhabta ah uu farmaajo ku doonayo inuu muddo kororsi ku sameysto ciidamo badan oo Itoobiyaan ah oo ka soo gudbay xadka Soomaaliya gudahana soo galay iyo ujeedkooda ciidamadan halka ay saldhigan doonaan warbixin ayaan idinla wadaagi doonaa. dowladda Soomaaliya oo albaabada isugu dhufatay shirkada howlo sharci darro ah ka waday Muqdisho. warar cusub oo ka soo kordhaya arrimaha doorashada Galmudug iyo guddiga farsamada oo shuruudo adag soo saaray qodobadaas ayaan idinla wadaagi doonaa. qodobada dibaddana waxaan idin haynaa safiir isaga oo buug xadaya la qabtay iyo warbaahinta oo hadal haysa. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad wararkeena ku daawan doontaan saaxiibayaal. inta aan gudagelin ka hor faahfaahinta wararkeena fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay rukumo channelkeena oo gambalaalka furo si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay halkan aan kusoo gudbino. haatanna aan ku bilaawno faahfaahinta wararkeena. siyaasiga caanka ah ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa kashifay olole cusub oo la doonayay in lagu sameeyo muddo kororsi. hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa kashifay olole cusub oo lagu doonayo qodobka 56 ee sharciga doorashooyinka ee muddo kordhinta ka hadlaya in sidiisa loo daayo si muddada loo kordhinayo ee 6 bilood ay u hirgasho. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in qorshaha loogu jiro muddo kordhinta ay tahay mid lagu doonayo in haddii dib u dhac ku yimaado doorashada in madaxweynaha iyo baarlamaanka loo kordhiyo muddada haddii doorashada xilligeeda ku dhici weydo. waxaa socda olole lagu doonayo in qodobka 56 ee sharciga doorashooyinka ee muddo kordhinta ka hadlaya sidiisa loo daayo laakiin muddada la kordhinaya laga dhigo 6 bilood. qodobkaasi wuxuu ka hadlayaa dib u dhaca doorashooyinka waxaana lagu sheegay in madaxweynaha iyo baarlamaanka muddada loo kordhinayo haddii ay doorashada xilligeeda qabsoomi weydo. waxba isma dooriso in 6 bilood la cayimo iyo in kale. muddo kordhinta 6 bilood ayaa 6 sano noqon karta. xildhibaanada baarlamaanka qaarkood ee ololaha ugu jiro muddo kordhinta waa inay kalsooni ku qabaan shacabkooda doorashadana isku diyaariyaan. ma aha in dalka qalalaasa iyo xasilooni darro siyaasadeed ay abuuraan. madaxweynaha iyo been masheegayaasha waxay ku andacoonayaan in baarlamaanka uu ka hor taagan yahay doorashada qof iyo cod ah. haddaba haddii baarlamaanka uu muddo kordhin keeno waxaan kula talinayaa inay sharciga guddiga keenay meel mariyaan kana waantoobaan muddo kororsiga. haddii guriga aasaaskiisa la dhiso derbiga iyo daaqadaha la taago oo saqafka ama daboolka kore oo keli ah uu ku dhiman yahay ruux kasta oo caqli leh wuu garan karaa in fursad la siiyo dhamaystirka hawsha waana la isla garan karaa muddada lagu dhamayn karo. waana sidii la yeelay sanadkii 2016 laakiin suuragal iyo caqligal toona ma aha in hawl aan weli la bilaabin muddo kordhinteeda laga hadlo. hal ansixiyo sharciga dabadeedna ha laga heshiiyo hanaanka doorashada iyo sidii loo meel marin lahaa howlaha xilligooda ha loo daayo. shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada rayidka culimada warbaahinta aqoon-yahanka iyo dhalinyarada waa inaysan korjoogto ka naqan dooda la xiriirto doorashada. siyaabo kala duwan ayay u cabiri karaan dareenkooda iyo aragtida arrimaha ku aadan. waa inaan qaadanaa olole xoog ku leh oo looga soo horjeedo muddo kordhinta ayuu yiri siyaasiga caanka ah ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. qaybihii hore ee warbaahinta jariiradda media ayaa daawanaysaan. bangiga dhexe ee dowladda Soomaaliya ayaa amray in la xiro dhammaan akoonnada forex. qoraal ka soo baxay bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu amray shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay inay xiraan dhammaan akoonnada shirkadaha ku shaqeeya
sarifka internetka ee forex ee ku leedahay shirkadaas. Qoraal uu ku saxiixan yahay gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe Maryan Cabdullaahi Yuusuf ayaa lagu amray in shirkadaha gaarka loo leeyahay ay fuliyaan amarkaas, sidoo kalena soo gudbiyaan cadadka lacagaha ku jira akoonka forex. Guddiga dhexe ee maamulka bangiga ayaa lagu sheegay 28 Oktoobar ee sanadkan kulan ka yeeshay arrintan, isla markaasna la go'aamiyay go'aanka ah in bangiyada gaarka loo leeyahay ay xiraan akoonnada forex. Amarkan ka soo baxay bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay ay taagneed dood ka dhalatay ka ganacsiga forex, iyadoo culummada qaarkood ay isku khilaafeen sax ahaanshaha ganacsiga forex. Jariiradda Mid ayaa naga daawanaysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday tirada ajaanibta ka howlgala gudaha dhismaha Xalane, xeyndaabka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde iyo xerada Xalane ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku sugan shirkado iyo shaqaale badan oo ajaanib ah, kuwaas oo howlo kala duwan ka haya halkaas. Waxaa muddo badan shaki ku jiray tirada shaqaalaha ajaanibta ah ee ka howlgala gudaha xarunta Xalane iyo qaabka ay u shaqeeyaan, waxaana arrintani ka jawaabay agaasimaha waaxda shaqaalaha gaarka iyo ajaanibta ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdirasaaq Macalin Cilmi. Agaasime Cabdirasaaq ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya la socoto shaqaalaha ku sugan xerada Xalane iyo guud ahaan magaalada Muqdisho. Agaasimaha ayaa sheegay inay magaalada Muqdisho shaqo ahaan u joogaan ajaanib badan oo tiradoodu gaarayso ilaa 4670 shakhsi oo u shaqeeyo shirkado iyo hay-ado kala duwan. Agaasimaha ayaa sheegay inay baaritaan ku sameeyeen shaqada ka socota Xalane iyo shaqaalaha ku sugan, isla markaasna ay ogaadeen waxyaabaha aysan horay uga warqabin, isagoo tilmaamay inay u gudbiyeen natiijada baaritaanka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, iyadoo dhowaan la filayo in la soo saaro go'aamo. Agaasimaha ayaa sidoo kale sheegay waxyaabo badan oo ku saabsan shaqaalaha ajaanibta ah ee ku sugan Xalane, oo uu qaarkood sheegay inay si sharci ah uga shaqeeyaan xeradaas. Qaybihii dhexe ee Jariiradda Mid ayaa daawanaysaan. Ciidamo badan oo Itoobiyaan ah aadna u hubaysan ayaa saacadii lasoo dhaafay ka soo gudbay xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya, gaar ahaan dhinaca gobolka Galgaduud. Dad ku dhaqan deegaano ku yaala xadka Soomaaliya ayaa sheegay inay arkeen ciidamo badan oo Itoobiyaan ah oo aad u hubaysan, waxayna sheegeen in ciidankan ay joogaan deegaanka xadka labada dal ku yaala. Ciidankan oo Itoobiyaanka ah oo la sheegay inaysan ka tirsanayn howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM ayaa deegaanada ay soo gaareen waxaa dhowaan ka dhacay dagaallo u dhexeeyay maleeshiyaad xoolo dhaqato ah iyo ciidamada Liyu Boolis. Ciidamada Itoobiyaanka ah ayaan la ogeyn ujeedkooda ay u soo galeen deegaanka ku yaala gobolka Galgaduud, gaar ahaan dhinaca xadka, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ciidankan ay adkeynayaan ammaanka xadka oo ay dagaallo ka dhaceen. Militariga Soomaaliya ayaa dhowaan gaaray deegaano ku yaala xadka Soomaaliya oo ay ku dagaalameen maleeshiyaadka Liyu Boolis iyo maleeshiyaad xoolo dhaqato ah, waxa ayna militariga labada dhinac u kala wareejiyeen maxaabiis ay kala qabsadeen. Haatana qodobada dibadda. Warbaahinta iyo baraha bulshada ayaa aad looga hadal hayaa fadeexad ku dhacday safiirka dalka Mexico u fadhiyay dalka Argentina kadib markii la baahiyay muuqaalka isaga oo buug ka xadaya goob maktabad ah. Ricardo Falero, 77 jir ah, ayaa lagu qabtay isaga oo maktabad buugaag iibisa ee Alteno Grande Splendid bishii Oktoobar ka xaday buug yaalay maktabadda, waxaana kaamirada maktabadda laga dhex arkayay safiirka oo buugga la baxayo isagoo aan lacag bixin. Buugga la sheegay inuu xaday safiirka Mexico u fadhiya dalka Argentina ayaa qiimaha lagu sheegay $10, waxaana buuggan uu ka hadlayay taariikh nololeedkii Calamardo Casavena oo ahaa qoraa, askari iyo basaas Talyaani ahaa oo noolaa qarnigii 18aad. Danjire Ricardo ayaa sidoo kale la sheegay in mar kale la isku dayay inuu shaati ka xado dukaan ku yaala garoonka Ezeiza International Airport ee magaalada Buenos Aires markuu sugayay diyaaradda uu Mexico u sii raaci lahaa. Wasaaradda arrimaha dibadda Mexico markii ay aragtay muuqaalka safiirka oo buug xadayo
oo lagu baahiyey warbaahinta iyo baraha bulshada u yeertay, waxaana safiirku wasaaradda u sheegay inuu shaqada ka tegayo sababo caafimaad darteed. War ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mexico ayaa lagu sheegay in safiirka laga aqbalay iscasilaadiisa, waxayna wasaaraddu sheegtay in xaaladda caafimaad la soo diristay danjiraha iyadoona u rajeysay caafimaad. guud ahaan saaxiibayaal halkaasi nooga dhow wararkii aad ka daawanayseen Radio Media. Fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar channelkeena si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay halkaan aan kusoo gudbino.